waxaan ahay gabar kusoo guursatay nin Pakistan wadanka Sacuudi Carabiya lay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolay dhibaato badan ku noolay waa muuqaal argagax leh gabar Soomaaliya oo afduub ku haysto nin Pakistani ah hadaba gabadhan Soomaaliyeed ayaa sheegtay in ninkan ay isguursadeen hase yeeshee ugu dambeyn u geystay wadankeeda isagoona ku haya tacdiye fara badan waxay ka sheekaynaysaa waxyaabo badan oo naxdin leh oo si maalinle ah loogu sameeyo qof kasta oo maqlana oo aad ula yaabay hadaba inta aan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu faafo bulshooyinka Soomaaliyeedna u gaaro gabadhan Soomaaliyeedna aan cadaalad ugu raad muuqaal argagax leh ayaa guud ahaan qabsaday baraha bulshada way Soomaalidu ku wada xiriirto hadaba gabar Soomaaliya oo ku nooleed wadanka Sacuudiya ayaa halkaasi waxa iska barteen oo ku haasaaween nin u dhashay wadanka Pakistan haasaawo kadib waa la isguursaday oo waa iscalfadeen hase yeeshee muddo markii ay ku noolaayeen wadanka Sacuudi ninkanna uu wanaag iyo laxa u muujinayay waxa uu ka codsaday inuu geeyo wadanka Pakistan hase yeeshee halkaasi markii uu geeyo waxa uu ku bilaabay waxyaabo badan oo tacaddi iyo argagax leh taas uu gabadhan Soomaaliyeed kula kacayo waxay iska soo duubtay muuqaal ay arrimahaasi uga sheekaynayso waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno si gabadhan loo caawiyo bal aynu isla daawano muuqaalkeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحال يرادا آمنة أويس وحان فيديو دوبا دولة شرفت البضن مدحوينه محمد عبد الله فرماجة رئيس الوزراء كل مدحدي شعب الصومالي فيديو ودرا وحان قبر الصومالي وكنا الوطن كباكستان قاصة عاصمة الإسلام بعد وحان هاي قبر كسو بورستي نين باكستان وطن السعودية العربية لابد كوري لابد بشت الضباط كودي دي وحان ودال 6 عيال afar iga dhintay afar aan haysto 2017 wadankan keenay sharcigi iyo deganaanshaha aan Sacuudi ka haystin oo iga kansalay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolay dhibaato badan ku noolay kulli taas mar dama waraysigeeda aan bixin hadii Ilaahay ka raali noqon laakiin hadeertan waxaan rabaa in dawladda garab istaagto dhanka sharciga aad ugu dhibaataysanahay wadanka markuu keenay sharcigu ii diiday wuxuu yiri sharci ma siinayo mas'uulna kaama ihi mar kale gabadhan Soomaaliyeed oo hadalkeeda sii wada ayaa waxa ay ka sheekaysay waxyaabaha dhibaatooyinka ee sida maalinlaha ugu dhaco waxayna sidoo kale fariin u soo dirtay dadka Soomaaliyeed iyadoona sheegtay in ninkani uu ku sameeyay afduub kana xariistay baasaboorradii iyo dhammaan dukumeentiyadii ay ku soo duuli lahayd kaas oo ay wadankeeda dib ugu soo laaban lahayd hadaba waa tan gabadhan oo ka sheekaynaysa arrintaasi waxaan u cabday safaaraddan waxaan ka qaban karnaa malaha ninkan viisada u diiday asaga ka takaatay waxaan rabaa in dawladda ay istaagto nin shakhsi intuu isoo wado wadanka ay keeno sidoo rabo ila dhaqmo dhibaato badan ii geysto haddana dhankii sharciga ii diido deganaashadeedii iga kansalay iqaamadeedii iga kansalay halkan si dhibaato badan oo ii geysto hadeertan waxaa jirta maxkamada noo socoto maxkamada ay socoto viisada waa iga dhacday viisa ma haysto ma awoodo qof shacabaan ahay shakhsi ah maamo ah in aan dawlad la xisaabtamo ama aan istaag qof shakhsi ahay ma istaagi karin dawlad horteeda uma dhigi karin maxaa sidaa igu qabatay waxaan rabaa dawladda sharafta badan inay ii istaagto ninkan shakhsiga sidoo rabo inuu dhaqmaa wadankiisa dhexdiisa in la iga qabto viisadeeda la iga qaado xaqayga xuquuqayga la iga dhiciyo muwaadin Soomaaliya ahay in shakhsi soo wato wadanka ay keen asigoon madaxweyne ee sidoo rabo ii galo ayaan daro waxaan rabaa in la ii istaago madaxdeedina ii istaagto dhibaatadaasaan qabaa tan ugu weyn ay tahay sharciga xaqiisa in la iga caawiyo xaqayga la iga qaado ninkan dhibaatada iga geystay in lala xisaabtamo albaab walba ee garaaca dawladda Pakistan lala fadhiisto xaqayga la iga dhiciyo taasaan u baahanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh afar iga dhintay afar aan haysto 2017 wadankan keenay sharcigi iyo deganaanshaha aan Sacuudi ka haystin oo iga kansalay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolay dhibaato badan ku noolay kulli taas mar dama waraysigeeda aan bixin hadii Ilaahay ka raali noqon laakiin hadeertan waxaan rabaa in dawladda garab istaagto dhanka sharciga aad ugu dhibaataysanahay wadanka markuu keenay sharcigu ii diiday wuxuu yiri sharci ma siinayo mas'uulna kaama ihi waxaan u cabday safaaraddan waxaan ka qaban karnaa malaha ninkan viisada u diiday asaga ka takaatay waxaan rabaa in dawladda ay istaagto nin shakhsi intuu isoo wado wadanka ay keeno sidoo rabo ila dhaqmo dhibaato badan ii geysto
haddana dhankii sharciga ii diido deganaashadeydii iga kansalay iqaamadeydii iga kansalay halkan si dhibaato u badan oo igu geysto haddeertan waxaa jirta maxkamada noo socoto maxkamada ay socoto viisada waa iga dhacday viisa ma haysto ma awoodo qof shacabaan ahay shaqsi ah maamo ah in aan dowlad la xisaabtamo ama aan istaag qof shaqsi ahay ma istaagi karin dowlad horteeda uma dhigi karin maxaa sidaa igu qabatay maxaa sidaa igu qabatay waxaan rabaa dowladda sharafta badan inay ii istaagto waxaan ahay gabar kusoo guursatay nin Pakistan wadanka Sacuudi Carabiya lay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolaay dhibaato badan ku noolaay waxaan ahay gabar kusoo guursatay nin Pakistan wadanka Sacuudi Carabiya lay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolaay dhibaato badan ku noolaay waxaan ahay gabar kusoo guursatay nin Pakistan wadanka Sacuudi Carabiya lay 3 sano wuxuu igu hayay guri meel gobol ah si dhib laan ku noolaay dhibaato badan ku noolaay haddaba baryihii ugu dambeeyay waxaa soo badanaya gabdhaha Soomaalida ah ee guursanaya nimanka ajaanibta ah iyadoona noqotay wax faan ah waxaana guud ahaan baraha bulshada haddii aad gasho sida TikTok iyo YouTube ka arkaysa gabar Soomaali ah oo nin ajaanib u qabo taas oo soo bandhigaysa muuqaal qurxan dhanka kale arintan ayaa markii ugu horeysay soo shaacabaxayso gabar Soomaaliyeed oo tacaddi kala kulmaysa nin ajaanib ah gabdho badan ayaa hore u dhahayay nimanka Soomaalidu waa ay xun yihiin hase yeeshee qisadani waxay muujinaysaa in nimanka Soomaaliyeed ay wanaagsan yihiin maxaa yeelay nin Soomaaliyeed haddii uu si walba gabar u dhibaateeyo ma afduuban karo wareerkeedii iyo dalkeedii ay dhex joogtaa waana ay ka badbaadi kartaa hase yeeshee haddii wadan aadan u dhalan lagu geysto waa cadaab iyo ciil ku nool weliga haddaba gabadhan Soomaaliyeed si aan u caawino fadlan muuqaalkan share gareeya oo dadka Soomaaliyeed la wadaaga sidoo kale waxaa sameyn kartaan muuqaalka leegareeya si uu faafo bulsho badan u gaaro